بسم الله الرحمن الرحيم. Benvenuti amici. E oggi studiamo il nostro libro facile, livello a zero. La nostra lezione oggi è completa. Cominciamo qui completa e poi facciamo insieme. Meshan è che bilaawena kusoo dhawaada saaxiibayaal completa. Per esempio meshan waa 7 waxaa loo qoray eray ahaan 1 na ka maqan 5 qoraalka caadiga waa kana meshan la raaca inta ka buuxiyay 5 6 9 3 0 8 2 4 10 4 6 5 8 scrivi i numeri number ahaan u qor 6 waxa u qoray 6 a qoray 0 euro waa kana ay number ahaan u qor oo u waxa u dambeeyahay tusaale 5 number ahaan u qor 6 7 number ahaan u qoray va bene. Asharka saxda ee waa unità 1 ciao lettere C suono dolce. Maanta waxaa baranaynaa sida xarafka ca afka Soomaaliga waxaa ku dhahno Talyaanigeena oo C lagu dhaho sida loogu dhawaaqo waa suono dolce ee dhahan Talyaaniga waa dhawaaq macaan. Haddii ca lagu daro i afka Talyaaniga waxaa loogu dhawaaqaa ci. Haddii ca oo e lagu daro C biu e afka Talyaaniga waxaa loo dhawaaqaa C. Per esempio tusale meshan ci o i lagu dare waa ci musama tusale cinese ma dhehaysid jinese ma dhehaysid ya tusale ama cinese ma dhehaysid ama sinese ma dhehaysid waa cinese. Haddii ci biu e haddii a e lagu darna maxaa lahaa ce. Per esempio cente tusale ahaan 100. Va bene. Leggi akhri città oo magaalo 5 oo ah number 5 ceroto waa naqaanaa sharota Soomaali sharota lagu dhahaa centro oo centro waa centro center xarun koowaad ciao oo hay ama ciao Soomaali ta ciao lagu dhahaa ama sidee tahay camicia oo shar luce oo nal iyo faccia oo waji okay. Metti in ordine le parole dell'esercizio 11. Metti in ordine isku hagaaji fiiri markaa luqad baranaysid waxyaabaha ugu muhiimsan waxay tahay in aadan eray u baran waa in aad u barataa si jumle hadda fiiri metti in ordine isku qabo metti in ordine wax waaye nidaame wayno tomorrow marka insha Allah ta'ala luqad si fiican u hadla doontid la gaaro ha isdhihin metti wax waaye dhig ordinen wax waaye macnaha maxay ahayd ordin ahaan hagaag metti in ordine waa nidaame. Le parole ereyada dell'esercizio 11 ee exercise-ka ama layliga 11. Okay waxaana qoran waa kana meeshaan gacanta ku haayo marka waa ta a iyo ci iyo i marka la hagaajiyo tusaale lagu sii waa città oo magaalo okay كم حدينا وحان يشان كل نقلنا وح عصب انت لا كان كركان لا كان وكو لابو سدح افر شن لح تضو سديد شيء انت كو طالو واتشتا مغاله تشينغو نمبر شن اتشروتو او شروتو اتشنترو او كواب محرون اتشاو او تشاو كاميتشا لوتشا افاتشا هل هانا انت لو كلا قلقلدي سدا او توسليد بس laga rabaa كو metti in ordine le parole dell'esercizio 11 نظامي erayada exercise-ka 11 waxyaabaha aan rabo inaan carab ku dhufto waxay tahay walaal markaa rabtid inaad luqad baratid hadday ahaato English hadday ahaato Faransiis ay luqad haddii aad rabtid isku day inaad jumlad u barto metti in ordine hadda tusaale u fiicno ku sii waa kaas metti in ordine waa nidaame le parole erayada dell'esercizio 11 ee exercise-ka ama layliga 11
تين كود واتشتا ومقالة كان واتشينكوي ونمبر شن هذه محاطة شروط no شروط ما اوكي شروط دوبيوتي او كجرتو انت ماو camicia centro luce ciao ok faccia no هذا بيجي صح faccia وكانت وشروط صح وشروط واحد سبتو إتا وكان شروط اوكي città وكان نمبر كو ومقالة 5 نمبر شن شروط o شروط faccia o وجه centro o centro magari guidata central là camicia o shar luce o nal io ciao o ciao ataqanit ok completa con ci o c'è le parole dettate dall'insegnante wuxuu ku leeyahay completa ku buuxi con ci o c'è ama waxaa ku buuxiyahay ci waa suuno dhooljaha soo qaadan labada shay ama ci ku buuxi ama c'è ku buuxi le parole dettate dall'insegnante erayada oo macalinka yidhi kuwa macalinka ku yidhaa okay Cina per esempio ka maxaa dheh cucina oo kushin pace waa nabad waxaa ku buuxisay chai oo che pace waa nabad ya very good amici oo saaxiiba cesto oo jeste waa taqaanaa carocci oo carose macnaa istalaab cinese oo chinese cento waa boqol China waa waddanka Shiinaha China waa casho bacho waa shumis forbici waa maqas okay halkaasay noo joogay oo kuwaatoor riji hal mar ku celiyo la lettera C suono dolce c'è più i haddii a i lagu daro iyo c'è più e haddii a e lagu daro ci più i waxaa loo dhawaaqaa ci tusaale cinese ci più e waxaa loo dhawaaqaa c'è tusaale cento oo boqol va bene leggi akhri città waa magaalo 5 waa shan cerotto waa sharotto centro waa centro ama centraha ciao ciao waay camicia o share luce o nale faccia o wajhe ok metti in ordine le parole dell'esercizio 11 metti in ordine nadami ama isku hagaaji le parole erayada dell'esercizio 11 e exercise ka 12 città o magale 5 cerotto faccia centro camicia luce io ciao completa waxaa ku buuxisaa con ci o c'è ama i ku buuxi ama e ku buuxi afka Soomaaliga oo ci o c'è talaniga le parole dettate dall'insegnante erayada macalinka uu yidhi anad waxba kuma yeelooyo laakiin waa wada shaqaynaynaa soo waa wada baranaynaa luqada okay Cina cucina cesto cinese Cina cena pace amici croci cento paccio forbici paccio ok Cina waa Cina cucina waa kushinka cesto waa cesto wax lagu qoro tabashir Chinese waa Chinese China waa shiinaha China waa casho pace waa nabad amici waa asxaab ama saaxiibo croci waa istalaab cento waa boqol pacho waa shumis forbijin waa maqas
halkaas ay noogu joogi doontaa insha allahu tacaala inta aan mar labaad kulmi doon waxaa idinkaga tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ciao ciao ci vediamo mar kale as arki doonnaa assalaamu calaykum